السلام عليكم waxaa halkan ku soo gudbinayaa hadaladii Ash oo kaga qayb galay barnaamijka 360 ee maanta. Waxa uu hadalkiisii Ash ku bilaabay maalin wanaagsan ayaa inoo tahay Amerika. Waxaan rajaynayaa kulligeen inaad maalin wacan ku wada jirtaan. Waxaan doonayaa 3 arrimood oo qodob inaan ka hadlo. Tan koowaad, Ombasif way waaraysaa, wayna joogaysaa, way bulaalaysaa oo horumaraysaa, isla markaana waxay noqon doontaa wax aad ku naxdaan. Macno ma samaynayso ilaa iyo wanaagga aad Ombasif ka aaminsantiin. Laakiin inta ka aaminsantiin way ka sii wanaagsan tahay. waxayna idin gaarsiin doontaa farxad aad iyo aad u sarreysa oo aad la rayraysaan. Haddii aad necab tahay bini'aadanimada, ma jeclaan doontid waxa aanu samaynayno. Hore ayaanu u jabinay rikoorro badan tan iyo Sebtembar sanadkii hore 2023. Qof walbana waanu ka nixinay oo wuu inaga cabsaday. kambaniyadii lacagaha inoo qaabilsanaa ayaa lacagaheennii xanibay. waan idiin sheegay in aanu guulaysan doonno oon ka guulaysan doonno kambaniyada. waxaan hore idinkugu sheegay inay 3 arrimood ama 3 tallaabo inaanu qaadi doonno. taasoo ah warqado inaanu diro, dukumiintiyo inaanu diyaarino, iyo qareenno inoo dooda inaanu samaysano kuwii hore iska bedelno. shalaytana wixiiba way soo dhammaadeenoo annaga oon wax tallaabo ah oo kale oo afraad aan ku darin bay soo dhammaadeen. dhammaan caqabadihii inaga haystay dhinacyada lacagahana waa la soo xalliya. iminkadana maalintay doontaba ha noqotee si degdega ayay lacagihii idinku soo gaari doonaan. hore baanu u dhaqaaqaynaa. lacagahana way kala socon doonaan, waadna la bixi karaysaa. inta ugu badan bangi ayay ku jiraan, way fadhin doonaan. dhowr maalmood ka bacdina waa la kala shaandhayn doonaa oo markaa waa la kala wadi doonaa. arrinta labaad waxay tahay oon idinkugu darayaa, waxaynu ka gaaray horumar aad u ballaaran oo la taaban kara baanu waxaanu ka gaaray kala socoshada lacagaha. waxbaanba iminka tijaabinaynaa oo tijaaba inoo socota. wayna soo dhammaan doontaa. markay soo dhammaatana waxay noqon doonaan inaan dhowr qaab aanu u handal garayno ama aanu ula tacaalno lacagaha. mid baanu ku sii daraynaa markaa, taa oo noqon doonta midaanu annagu leenahay. halkaa wuxuu ka wadaa system maaliyadeed oon annagu leenahay ayaanu samaysan doonaa. arrinta saddexaad oon rabo inaan idin sheego waxa ay tahay tayada O Connect waa mid cajiib ah, aad loola tacajabay. mobile applicationka versionkiisa cusub ama qaybtiisa cusub oo lasoo jadiidiyana iminka lasoo saarayaa oo soo baxayaa. agabka oo verify ayaa isagana gabagaba ku dhow. taasina waxay horseedi doontaa inaanu agabyo kale soo saarno. Ash wuxuu rabaa wax badan inuu idin sheego, laakiin hadda ma awoodo inuu idin sheego. sidaas ayaana wanaagsan, maadaama aan arrimaha gadaale aanay iminka muuqan oo aanay soo bixin. hadaladii Ash intaasay ku egyihiin. qoraalka meesha ugu dambaysa waxaa loogu mahad celiyey Dan Street, Darrell Cook iyo Peter Sarur oo iyagu ka caawiyey notiskii ama hadaladii intuu hadlayay inay gacanta ku qoraan. waa mahadsantiin. waa Aamina Muuse oo idiin soo gudbinaysay hadaladii uu Ash ku hadlay
agaasimaha iyo milkiilaha kambaniga teknolojiyadda ee weyn ee Ombasif mar uu maanta ka qayb galay barnaamijka 360 waa mahadsantiin.